wararka sheegaya in hogaamiyaha sare Iiraan Cali Khamenei la beegsaday haddii ay run noqoto ma noqon doontaa bilow dagaal weyn mise waa ciyaar siyaasadeed oo ka weyn intaan aragno ku soo dhawow channelka Abu Walad qaybta koowaad falanqeyn hore dagaalka Iiraan iyo Israa'iil haddii madaxa nidaamka la taabto jawaab ma baaqan karto Israa'iil iyo Mareykanku waxay qorsheeyeen talaabo sanado la diyaarinayay laakiin weli xaqiijin rasmi ah ma jiro hadalka Trump waa malaawaal siyaasadeed Iiraan haddii ay aamusto waxay noqon kartaa xeelad istiraatiiji ah maxaa gobolka ka dhici kara haddii xaqiiqda la xaqiijiyo jawaab adag Iiraan ma aqbali karto in madaxeeda sare la beegsado iyada oo aamusan laakiin dagaal toos ah wuxuu noqon karaa burbur dhaqaale ee military qaybta labaad xogta cusub carabta iyo jasiiradda carabta waxaa weeraray Iiraan Mareykankuna wuxuu isticmaalaa carabta si uu Iiraan ugu duulo qoomiyad ka soo baxday lama-degaanka oo markii hore dhistay ilbaxnimo heer sare ayaa hadda ku tiirsan dunida reer galbeedka ma jiro madax banaani ma jirto gaashaan ma jirto xoog difaaca dhulka dhan wuxuu u muuqan karaa mid halgantaal kaliya burburin kara tan iyo markii ay ka tageen dariiqa nabigooda sallallahu alayhi wasallam carabta waxay hoos ugu dhacday awoodda dhismaha waxay hadda noqdeen goob lagu xisaabtamo dhexda awoodaha waaweyn Faris Roomaan Yahuud iyo kuwa kale qaybta saddexaad islaam iyo aragti dhaqan wuxuu yiri waxaan nahay qoom eebbe ku sharfay islaamka haddii aan sharaf ka raadino waxaan islaamka ahayn eebbe wuu duleynaya tani waxay muujinaysaa in sharaf iyo awood dhab ah ay ku xiran tahay islaamka iyo isku tiirsanaanta qoomiyadda ma aha dunida reer galbeedka qaybta afraad maxaa hadda socda Mareykanka iyo Iiraan labaduba waxay ku lug leeyihiin dagaal sir ah carabtana waxay noqdeen meel dhexe oo lagu xisaabtamo laakiin wax kasta waxay ku xiran yihiin go'aanka siyaasadeed ee Mareykanka Israa'iil iyo Iiraan jawaabtu waxay noqon kartaa dagaal weyn ama cadaadis siyaasadeed oo qarsoon su'aasha ugu weyn matani waa bilowga dagaal weyn mise waa dagaal maskaxeed oo heer caalami ah dhammaan dhinacyadu waxay bixinayaan qiimaha ka dhalanaya gaabiska ama aamuskooda haddii aad rabto inaad fahanto xogaha noocan oo kale ee taariikhaha qarsoon ku xirnoo channelka Abu Walad ku salay nabigeena sharafta leh sallallahu alayhi wasallam haddii aad daawado dhamaysatay tani waa Abu Walad waxaan idin soo bandhigaynaa xaqiiqada dhabta ah mahadsanid warar sheegay in hogaamiyaha sare ee Iiraan Cali Khamenei la beegsaday ama la dilay haddii ay run noqoto ma noqon doontaa bilow dagaal weyn mise waa ciyaar siyaasadeed oo ka weyn intaan aragno ku soo dhawow channelka Abu Walad haddii madaxa nidaamka la taabto jawaab ma baaqan karto Israa'iil iyo Mareykanku waxay qorsheeyeen talaabo sanado la diyaarinayay laakiin weli xaqiijin rasmi ah ma jirto hadalka Trump waa malaawaal siyaasadeed Iiraan haddii ay aamusto waxay noqon kartaa